Siman iyo Sidra waa laba gabdhood oo walaalo ah da'dooda waxaa lagu qiyaashay 5 jir. Toddobadii bishii Afraad 2021 ay ahayd markii hooyadood ay garoonka diyaaradaha magaalada Garowe ay kaga dhaqaaqday. السلام عليكم هذا وناكسن مال وناكسن وقت والبيكوتا وناكسن سو دوادا اصحاب تقاليغا غعم فران قلب فران كسو دوادا برتانا قدامنيسي وبرتان يوتيوب كلنا سكي منيمو كسو دواو هذا نوع عصبتا waxaan ku leenahay subscribe kana saar iyo like iyo share ka insha Allah da hore noo joogtane komananka hore noo jooga ataane like iyo share ka insha Allah biidnillahi kareem Ramadan kareem afur wanaagsan hada afurteen hada wali afurna waxaan leeyahay caafimaad ku afura هذا سحور سويسين عافماد iyo سحور إن شاء الله بإذن الله كريم waxaan ka hadli doonaa laba gabdhood oo yar yar oo lagu qabtay bisha todobadeeda Garowe caasimada maamul goboleedka Puntland labadaas gabdhood oo isla dhasheen oo elaboorka looga tagay ka bacd markii elaboorka looga tagayna sidaas lagu helay welina aabaheed iyo hooyadood iyo wali aan lagu wareejin maanta ay hayso dawlad goboleedka Puntland qeyr Allah siyaan leenahay labadaas gabdhood ee laboorka ayaan looga tagay macnaha ilma hooyadood ka tagaysina jartamo maleynay laakiin wixii jarabo waa soo bixi doona insha Allah biidnillahi kareem bal hee nala daawada haduu Ilaahay yiraahdo Siman iyo Sidra waa laba gabdhood oo walaalo ah da'dooda waxaa lagu qiyaashay 5 jir. Toddobadii bishii Afraad 2021 ay ahayd markii hooyadood ay garoonka diyaaradaha magaalada Garowe ay kaga dhaqaaqday. Xilligaas wixii ka dambeeyay waxaa gacanta ku dhigay Cabdiqaadir Cabdirashiid Abshir iyo Warsan Cilmi Xirsi oo ah qoyska gacanta ku hayay muddadaasi. Tallaabadii ay qaadeen ugu horeysay ayaa ahayd inay geeyaan saldhigga dhexe ee magaalada Garowe ayna ku wareejiyaan taliyaha saldhigga balse taliyuhu waxa uu sheegay inuusan mas'uuliyadda carruurtan qaadi karin ayna sii hayaan inta dawladda ay kala wareegayso amaba waalidkood la helayo. Intaasi ugama uusan harine Cabdiqaadir bogiisa Facebook ayuu ku qoray in carruurtan uu baafinayo. Maalmo kadib waxaa la soo xiriiray aabahood oo ku sugan magaalada Muqdisho sida uu daljir u sheegay. maanta ay taariikhdu ku beegan tahay 19 bisha Afraad 2021 ay qoyskan ku wareejiyeen maxkamadda darajada koobaad ee gobolka Nugaal iyagoo xiriir la soo sameeyay xafiiska xuquuqul aadanaha Puntland oo ka caawiyay kiiskan. wixii maanta ka dambeeyana mas'uuliyadooda iyo noloshooda iyo hawshooda ay la wareegtay dawladda Puntland anagu waxaan karnay asxaabna haysanana waa ramay laakiin cabashooyin badan oo dhanka dawladda naga yimid iyo hay'adaha la xiriira ahaynta carruurta iyo korinta waxaa xoogna laga dhigay in ciyaalka wareejino waana wareejinay waxaa ilaahay hortiis iyo Soomaali Maxamed ka cadeynayna ciyaalkaas maanta inay gacantayda ka baxeen dhowr iyo 10 bari ahaynay inaan nolol fiican ku haynay carruurta xaafadeena mid ahaayeen iyagoo qurux badan sidoo ku soo qaadanay ka qurux badanna ku wareejinay gacanta dawladda. Assalaamu calaykum dilshir aad baa salaam insha Allah. haddaba xafiiska xuquuqul aadanaha ee Puntland isagoo ilaalinaya awoodaha iyo mas'uuliyadaha xilgudasho ee ku xusan qodobka 118aad iyo 116aad ee dastuurka dawladda Puntland qodobka 12aad xeerka difaaca xuquuqul aadanaha Puntland waxaa soo gaartay xafiiska xuquuqul aadanaha cabashada Cabdiqaadir Cabdirashiid Abshir iyo Warsan Cilmi Xirsi oo gacanta ku hayay labadan gabdhood oo da'dooda lagu qiyaasay 5 jir. carruurtaas oo garoonka diyaaradaha ee Garowe Sarnaal Maxamed Abshir ay uga tagtay qof dumar ah taariikhdu markay ahayd 7 bishii Abriil 2021. xafiiska difaaca xuquuqul aadanaha Puntland isagoo ilaalinaya xuquuqda carruurta taasi oo ilaalisa shareecada Islaamka iyo dastuurka dawladda Puntland qodobka 11aad sida badqabka korriimada waxbarashada iyo daryeelka caafimaadka ee carruurta ayuu ka jawaabay cabashada uga timid muwaadiniinta sabab ku xusan si waafaqsan qodobka 42aad ee dastuurka dawladda Puntland waxaana uu u gudbiyay tala bixin sharci hay'adaha ku shaqada leh. wuxuu xafiiska soo jeediyay tala sharcina ka bixinaya badbaadinta ilaalinta gacan ku haynta labadan gabdhood ee kala ah Sidra iyo waliba Siman in la ilaaliyo xuquuqdooda iyada oo loo marayo nidaamka sharci ee u degsan ilaalinta xuquuqda carruurta. sidoo kale xafiiska xuquuqul aadanaha Puntland wuxuu ku talinayaa iyadoo la ilaalinayo xuquuqda carruurta ee kor ku xusan in Cabdiqaadir Cabdirashiid Abshir iyo Warsan Cilmi Xirsi oo gacanta ku hayay Sidra iyo Siman in looga wareejiyo si sharciga waafaqsan. haddaba goorma ayuu kiiskan soo gaaray xafiiska xuquuqul aadanaha Puntland? Farax Muumin Yuusuf oo ah
madax qeybeedka ilaalinta caruurta iyo ka hortagga tacadiyada ee xafiiska xuquuqul aadanaha Puntland ayaa dalkii sidan u sheegtay. xafiiska wuxuu soo gaaray 15 bishan waxaana soo gaarsiiyay muwaadiniin gacanta ku qabtay kiiskan 7 bisha afraad muwaadiniintaas oo kiiska gacanta ku haysa xafiiska ayay la soo xiriireen iyagoo cabashadooda ay ku wajahnayd caruurtan mas-uuliyadda ciddii kala wareegi lahayd alaanaha dowladda xafiiskuna isagoo ka duulaya ilaalinta xuquuqda maaragtay gaarka gaaran xuquuqda caruurta kiiskan waxaa u sameynay galbaa u sameynay dokumentigan ka sameynay deetana waxaan ku qornay dhammaan cabashooyinkii muwaadiniinta waxaan la xiriirnay cid walba ay khuseysay anagoo maaragtay ka duuleynay cidda ku habboonay caruurtan la wareegi lahayd inaan isku xirno kana qayb qaadano sidii caruurtan ay ku heli lahayn xuquuqda ay leeyihiin iyo badqabkooda ilaahay mahadiis weeye caruurtan waxaanu geynay maxkamadda waxaana laga diyaariyey dokumenti waxaana lagula kala wareegay maxkamadda lagula kala wareegay magacaygu waa Fatix Xirsi Cali qareen ka tirsan xafiiska xuquuqul aadanaha dowladda Puntland waxaan rabaa in yar warbixin ah inaan ku kabo farax oo ugu horeysay oo kiiska cabashadiisa isugu soo gaaray xafiiska ka hadashay xafiiska xuquuqul aadanaha dowladda Puntland asagoo gudanaya mas'uuliyaadkiisa ku xusan qodobka 18 iyo qodobka 16 ee dastuurka Puntland iyo qodobka 12 ee xeerka difaaca xuquuqul aadanaha wuxuu si toos ah u qabtay cabashadan oo uga timid muwaadiniintii gacanta ku haysay labada ilmood run ahaantii waxaa la mariyay boroseeskii saxda ahayd oo ay mari jirtay markay cabashadanu soo gaarto waxaas intaas sii dheerayd waa markii ugu horeysay oo sifo sharci ah lagula kala wareego ilmo ayadoo xafiisku uu run ahaantii mas-uuliyad badan iska saaray sidii ilmahaasi ayagoo dad qaba loogu wareejin lahaa mas-uuliyiinta dowladda waxaana lagu wareejiyay wasaaradda cadaaladda iyo wasaaradda haweenka dowladda Puntland waxayna la wareegeen sifo sharci ah anaguna waxaanu intaas uga harimayna haddii la yiraahdo markasta waxaanu la taaganahay talasiin sharci kormeerid inay ilmaha baahiyihii loogu talagalay ay helaan markastaana u dhammaystiran yihiin sidii mas-uuliyaddii loogu wareejiyeyna ay si fiican looga soo baxay haddii la yiraahdo. intaasi kadib maxkamadda darajada koobaad ee gobolka Nugaal ayaa la wareegtay maanta caruurtaasi xeraaliye ku-xigeenka dowladda Puntland Maxamed Xareed ayaa madasha ka sheegay in xafiiska xuquuqul aadanaha Puntland ay xeraalinta u soo gudbisay xogta muwaadiniintan caruurta gacanta ku haysay. muwaadinkaas iyo muwaadinadaas labada gabdhood hayay waxaa xogta u soo gudbiyay xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha xafiiska xeraalinta kama iman hay'adaha xafiiska xuquuqda aadanaha qoraal soo qoray aan maxkamad sharafta lagu soo gudbinay kadib waxaanu u yeernay maadaama labada muwaadin ay codsadeen labada gabdhood in laga wareejiyo laguna wareejiyo gacanta dowladda loogana wareejiyo sifo sharci ah. gudoomiyaha maxkamadda darajada koobaad ee gobolka Nugaal Sheekh Cabdinuur oo xeraalintu ay ku wareejisay caruurtan ayaa sidan hadalkiisa isna u dhigay. warbixinta uu soo jeediyay xeraaliyuhu oo ah labada gabdhood oo hadda maxkamadda ka hor muuqda gudoomiyaha xuquuqda aadanaha xafiiskiisu uu u soo gudbiyay xeraalintuna ay sheegeen caruurtaas in ayraboorka laga helay oo wixii watay ay halkaa kaga dhinteen ayna codsadeen marka in lagu wareejiyo intay kiiskiisa soo dhammaystirayaan labada hay-adood oo caruurta qaabilsan oo ah wasaaradda cadaaladda iyo wasaaradda haweenka maxkamaddu marka saasay ku aqbashay. intaasi kadib waxaa lagu wareejiyay caruurtan si mas-uuliyaddooda uga qaadaan inta laga helayo waalidiintooda wasaaradda cadaaladda wasaaradda haweenka iyo horumarinta qoyska iyo ururo maxalli ah oo kala ah taalo iyo tadaamun iyadoo maxkamaddu ay ku wareejisay gacantan u gelisay caruurtan. maxkamadduna ay sheegtay in xeraalinta waajibkeedu uu yahay 15 cishaba kormeer lagu sameeyo caruurtaasi inay heleen daryeel caafimaad cunto iyo xuquuqda ay u baahnayeen. anigoo ah Cabdiraxmaan Jaacar Shire agaasimaha waaxda xabsiyada dhaqan celinta ahna gudoomiyaha diversion committee child protectionka dowladda Puntland waxaan halkan maxkamadda kala horwareegaynaa oon cadeynaynaa aniga wasaaradda haweenka
inaan la wareegin labada gabdhood oo yaryar u baahan xanaanaynta iyo inta la kala dacwadeedkiisa iyo baaritaankiisa iyo cidda dhashay uu soo ogaanayo. waxaa la yidhahaa magacayga Sawdi Xuseen Maxamed waxaan isbiyaa wasaaradda haweenka arrimaha qoyska gobolka Nugaal waxaan gacanta ku haynaa ilmaha yararka ah inta kiiskooda la dhammaystirayo wax walba ay u baahan yihiin oo caafimaad ah daryeel protection oo dhammaystiran anaga sameeyna insha Allah. dhacdadan ayaa noqonaysa tii ugu horeysay oo nooceeda ah oo xafiiska xuquuqul aadanaha Puntland uu ka jawaabo iyada oo uu ballan qaaday xafiiska in kaalintooda ama doorkooda ay ka ciyaari doonaan sidii carruurtaasi loogu simi lahaa ama gacanta loogu gelin lahaa waalidiintooda. xasan heykal warbaahinta daljir garowe. sidaa daawateen waa caruur yar yare oo laga helay eelaboorka garowe waalidiintooda weli lama haayo kolley waalid ilmihiisa ka tegay 7 bisha maantana 19 ay tahay oo eelaboor ku hilmaamay mar hore ayuu soo naqalahay eelaboorku ma lahay kolley waxaan leenahay dadka haayo khayr Allah ha siiyo maamulka Puntland oo maanta gacantiisa lagu soo wareejiyay dad haayeen waalidiin Soomaaliyeedna waxaan leenahay videogan duu ku soo gaaray hal share gareeyo laagta hala saaro sidee u gaaro videoga meel dheer labadaas gabdhood oo mataanaha ah inay mataanihiin la qiyaasayo maxaa la yiraahdaa 5 jira ah labadoo 5 sano jiraan hadii lagu dhahay iyo waxay u eg yihiin inay mataano yihiin kulley waa laga yaabaa inay mataano yihiin inay hal sano kala weyn waa laga yaabaa waxa waaye waa laba gabdhood oo isla dhalashay sida videoga ku maqasheen amba aad ku daawateen waxaan leenahay marka walaalayaal videogan hala si la gareeyo hala si share gareeyo nagu soo biirna kumanaanka nagu xiran ka mid noqo subscribe-ka noo saar kumanaanka wanaagsan oo kalena ha gaarsiiyo videogan insha Allah si adigu wanaagsan tahay siday u helaan waalidiinta ilmahaas insha Allah intaan video lamid aan ku kulmayno waxaan leenahay Ramadaan Kariim amaana Allah maع السلامة إن شاء الله عافماذا يا رجالنا لما أنتين إن شاء الله بإذن الله كريم الدولة يراد